السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabtayda qaaliga ayna daawanaysa aad baad u mahadsantihiin meel kastoo joogtaan caalamka. waxaan idin leenahay soo dhawaada. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida waxyaabo xasaasi ah sida sir oo kale ama dokumentiyo aad u baahan tahay ama sawiro aad si leedahay, tusaale ahaan way kaa lumi ama fiidiyowo iyo wixii lamid ah aad ugu hoos qarin lahayd sawir baan ku hoos qarinaa, maaha ma isticmaalayno runtii wax applicationana ma isticmaalayno. waxaan ku hoos qarinaa sawir. tallaabada koowaad waxaad hal meel isku geyn doontaa waxyaabaha aad rabto inaad qariso, tusaale ahaan wuxuu doonaba ha noqdo. tusaale ahaan oo kale anu waxaan sameeyey folder, waxaan u bixiyay xasaasi, waxaan ku hoos qariyay dhammaan waxyaabihii aan u baahnaa inaan qariyo, in magaranaysaa aan qarinayo dhan. ama runtii waxyaabaha aan qarinayo ma waa sawir iska caadiya, in waxyaabo badan magaranaysaa oo qarsoomi karaan mihi sawiraanta in la shiidan kariyo. waxaan doonayaa tusaale ahaan ama cashar ahaan inaad idinku tuso. taasi waa tallaabada koowaad. tallaabada labaadna waa inaad soo qaadataa sawirka aad rabto inaad wax ku hoos qariso. tusaale ahaan oo kale anu sawirka maan wax ku hoos qarinayo, waxaa weeyaan daanyeer yar oo runtii cajiiba, dabadiis waxa ku tooganaya ma arkaysa. waa daanyeer yar oo ah kartoon tii waa cajiib. okay, tallaabada xigta waxa weeyaan inaan galno maxay tahay C drive-ka, kadibna folder aan ka dhex sameyno, isla markaana aan waxyaabihii xasaasiga ahaa iyo sawirkiiba aan ku dhex shubno. okay, markaa waxaan galaynaa C drive-ka. okay, C drive-ka galaynaa, kadibna waxaan sameynaa folder baan sameynaa, waxaan bixinaa hide. intii la tufayaa yaroos kalaalahaan saan markaas. okay, folderka hide baan dhex jiraa, laga hide markaas. markaa labada wax bayn qaadanaa, labada file, kadibna waxaan ku dhex copy-eynaa, ku paste garaynaa folderka. okay, waa diyaar. okay, tallaabada runtii waxaan doonayaa labadaba horta hubino waxay yihiin inta megabyte yihiin. okay, kan waxa weeye 43 megabyte. waxaa ku jira dee sawiraantii iyo maxay tahay iyo waxaa kusii dhex jira fiidiyowyadii ama nashiidooyinkii. kana waa imsad megabyte, waa 160 KB way kan hataa hal megabyte oo dhaw. okay, tallaabada xigta aan xagga ku qorin waxa weeyaan inaan kan u bedelo WinRAR. marka add archives baan odhanaa, kadibna runtii haddaad rabto xataa inaad password ku xidhato ku ogolaanaya. waxaad rabtaa advanced, marka qofkii u baahan inuu password kusoo xidho runtii hataa aan la jebin karin way adag tahay. log archives ama set password waa kan, haduna passwordka doontaad ku gelinaysaa. marka anu hadda password waad gelin kartaa, waxaad gelin kartaa 1 2 3 oo kale tusaale ahaan oo kale. okay, okay, wuu dhamaaday. okay, tallaabada saddexaad waxa weeyaan inaad furto CMD-ga kuna qorto script-ga. waxaan furanayaa CMD-ga. markaan CMD-ga furo waxaan gelinayaa maxay tahay C drive-ka. C drive-kana qaabka soo gelisa waxaan horeyga naga masax, kadibna haddana waxaad kasii dhex gelisaa folderkii oo ah hide, kadibna si naga masax. waxay dhigaysaa inay ku jiraan in kale faylasha kumay ku jiraan, daanyeerka ku jiraan, xasaasi, saxan iyo dhan naga masax. kadibna waxaan qorinaa copy space b baad raacinaysaa, kadibna waxaad qorisaa sawirka aad doonaysa in wax lagu hoos qariyo oo ah daanyeer aniga iyo
daanyeer dot jpeg jpeg plus wixii aad doonaysa in la qariyo ama sawirka la dhex geliyo oo ah xasaasi dot rar waxay noqonaysaa rar iyo magaca sawirka cusub aad doonaysa inuu soo baxo oo ah daanyeer runtii okay markaas si aad aragto kan waxaa la yidhi waa magaca sawirka aad doonaysa in wax lagu hoos qariyo kana wixii la qarinayay kana marka labada la isu geeyo maxsuulka soo baxay ama sawirka soo bixi doona markaad fato inta aad siiso intersi systemkana okay xawaayar qaldan okay camera mistake halkan qalad baan sameeyey okay halkan qalad baan sameeyey daanyeer baan ka dhigay daanyeen ka armas ka dhigay saxagaas laga hado okay one fail repeat fine oo soo baxay hadda marka kan naga xidhmo ka aan hubin hadaba dhamaantood kan inuu soo marka hore sawirku wuxuu ahaa 160 kb 160 kb okay 160 kb okay sawirka cusub soo baxay hadaba islaagno sagana okay 360 megabyte عجيب انت حتى وحي نولي هاي هاي تراي باشوف حتى نولي هاي صار كان حكوستر حتى لك كيف فهم سنة حتى مفرق اوكي مركا صار كان طبعا تكرر حوالي وين قاب كان هاي تراي استبتوا قبل هو حبي طبعا إنه يحكوا دحجرين كان هنا وحضرنا صار هاد كليك open with حضرنا صار open with قدمنا واحد كفر ساعة archive static والبروجرامز كسيتها كنت جرى حاجة كصوت درسات أنا كنت مين راح جرى وحاجة وطن بيجرى اوكي حط الفسا الرار amazing هاي من دون بين صباح وحين right click open with كم أقفل كاس اوكي أكسيد احتنا حساسي دينا مركز دوين سينا كسرته هذا مثلا extract to مش هضربته دي سامس كم حاجة لي كان تراكت كليسين سا دينا open with mirror marka xagan caadi ku soo kala laakiin markaan ku jirin choose another balance idina mad ka sii doonaysa mouse idina hadda waxaan ku sii jirnaa waxa la yiraahdo logo for another app on this PC idina waxa tagaysa meesha ku dhex jira saxana kale program fileska inta ama aad ku qorto weeyaa xagan aad gelisa ka tan ku dhufo idina waxa ku skaya idina waad ku furaysa qaabkaas هذا مسارات كيك وبيني مك حقنا عليه سؤال كذا راس وكاس كإكستراكت ولا مثلا سواء أنا كلا أنا إكستراكت كلامنا بشوف كيف بيتينيا 1 2 3 أوكي amazing يا وكاس سكفر تغيير حساسي هذا منه بتشانش عشر كلمات أنت تسكيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.